isaan afhayeenkii hore ee maamulka Jubbaland Cabdinaasir Seeraar Maax ayaa la soo xiriiray laanta afka Soomaaliga ee VOA isaga oo ku eedeeyay maamulka Jubbaland inay mas'uul ka yihiin xiriirka xumaaday ee u dhaxeeya iyaga iyo dawladda federaalka ah. Waxa kale oo maamulka Jubbaland ku eedeeyay inay ku tala jiraan inay ku guuldareysteen inay maamulkaasi doorasho ka dhacdo. Xuseen Barre ayaa ugu horeyntii weydiiyay sababta uu la soo xiriiray VOA. waxaan rabay oo la soo xiriiray warbaahinta VOA-da in aan waxyaalo fara badan oo runtii Jubbaland ka jira gudaheeda iyo siyaasadda amniga ee doorashooyinka soo socda arrimahaas oo dhan baan rabay aan ka hadlo runtii shacabka reer Jubbaland ay in badan hadda isweydiinayaan gudaha iyo dibadba. maxay tahay markaa ujeedada waqtigan aad uga hadlaysid? waxa weeyaan waxyaalaha hadda aan uga hadlaya waxaa keenay ayada oo shukuuk fara badan iyo mugdi uu galay yani himigii dadka reer Jubbaland ay lahaayeen iyo waxyaalihii ay higsanayeen ama ha noqoto xagga amniga xagga sharciyada iyo doorashooyinka soo socota oon loogeyn xilliga la qaban doono iyo qaabka ay wax yihiin xagga dawladda federaalka iyo maamul goboleedka Jubbaland oo runtii xiriirkooda meesha ugu hooseeyay uu gaaray oo runtii ay noqotay dadka reer Jubbaland shacabku inay isweydiiyaan meesha ay ku sugan yihiin iyo waxa ay higsanayaan iyo cidda badbaadin doonta. maxay tahay markaa sababta shakiga aad sheegtay keentay oo abuurtay? wala shakiga waxaa keenay tusaale ahaan waxaa jirta in dawladda goboleedka Jubbaland ee sharciyada ku dhisnayd oo madaxweyne lahayd golo baarlamaan lahayd marka waxaa jirta tuhun ah in baarlamaanka iyo xukuumaddu ay ku darsan doonaan waqtigoodii loogu talagalay runtii taasina waxaa muujinaya waxyaabaha soo socda ayadoo aan jirin guddiyo la qabtay oo ka shaqeeya runtii doorashada dadkii farsamo yaqaanka ah ee maaragtay loo tababari lahaa doorashada aan xilligeeda la sheegin waxyaalahaas oo dhan waxay keenayaan shaki aan u caddayn dadka reer Jubbaland shacabka iyo siyaasiyiintiisa iyo dadka yani daneeya in ay maaragtay shukuuk fara badan ay isweydiiyaan. hadalkaaga laakiin waxaad moodaa in laga dhandhansanayo in aad mucaarad ku tahay maamulkii aad afhayeenka hore u ahayd ee Jubbaland ma jirta arrintaas? ma walaal mucaarad mihi maamulka anugu waa maaragtay waan ka mid ahaa haddana runtii kama fogi oo de waa ka shaqeeyaa laakiin waxaa waajib saaran ah in aan saxo oo aan sheego wixii maaragtay aragtidayda ah oo maaragtay aan dadka aniga igu bartay Jubbaland iyo wanaageeda in maaragtay waxaa waajiba inay ogaadaan oo aanan de waxba qarinin waxa ka jira maaragtay Jubbaland iyo siyaasadeeda iyo arrimaheeda gudaha. qodobada aad ka dhawaajisay waxaa ka mid ah in uu xumaaday xiriirkii u dhexeeyay dawladda federaalka iyo maamulka Jubbaland maxaa sabab u arrimahaasi? walaal dawladda federaalka iyo wuu xumaaday runtii waxaa jirta waad ogtahay dawladda federaalka waxaa lagu eedeysay dawladda Jubbaland waxay ku eedeysaa waxqabad la-aan runtii ku saabsan xagga amniga waa ogtahay oo halkan waxaa ka jira maaragtay ciidan oo SNL la yidhaahdo maaragtay integration oo dawladda federaalka runtii hadda magaceeda halka ku xareysan waxaad moodaa marka Jubbaland in ayn arag maaragtay takarta iyadoo saaran oo waxaa la yidhi maroodigu midda saaran maaragtay midda kale u arkaa eedeynayso dawladda federaalku runtiina xaqiiqatan iyadu wixii waajib ah ee saaraana ay gabtay oo ay ka mid tahay dhulkii maqnaa inay qabato ciidankii halkan joogay dawladda federaalka runtii magaceeda ku xareysnaa uu burburay sababta burburka keentana ay tahay maaragtay ku talagal dawladda Jubbaland ay ku talagashay ciidankaas inuu sidaa noqdo sababtoo ah ciidankaas waxay ku eedeysay dawladda Jubbaland dawladda federaalka inay meeshana uu magaceeda ku joogo waxbana aynu qabanaynin tusaale ahaan dawladda federaalka waxay isku dayday inay galaangal badan u yeelato oo ciidankan ay saxdo oo la hubeeyo saa darteed waxay soo magacawday madax cusub madaxdii maamulka Jubbaland way diideen halkan yimaadaan waa laga celiya waa ogtaan u malaynayaa Israa'iilkii loo soo magacaabay ina bogmadow si halkan loo diiday marka runtii waxa weeyaan waa la siyaasadeynayaa marka waxaad moodaa arrin la siyaasadeynaya dhulkii maqnaa lama qabanin muddo fara badan waa ogtahay caasimadda ku meel gaarka ee Jubbaland Bu'aale caasimadeeda waa maqan tahay dhulka Jubbaland runtii intiisii ugu badnayd wax gacan uu ku jira lama arko. waa gartay inkastoo dawladda Jubbaland ay ka jawaabi doonto eedahaasi saan filayo laakiin adiga maxay kula tahay xalka halkeebu ku jira? walaalda xalku wuxuu ku jira runtii dawladda Jubbaland sharciyan ku dooranay sidii ay ahaydna inay ahaato oo runtii ha noqoto xagga amniga laga shaqeeyo inaan lagu darsanin yani baarlamaanka Jubbaland iyo xukuumaddu waa in waqtigii loogu talagalay runtii ay maaragtay waxeeyaan waxaa jira niman siyaasiyiina
oo runtii kicinaya yani abaabul siyaasadaysan oo beelaha walaaleed dhulkan Jubbaland waa dega maartay runtii aad moodo beriyahan dambe inay aad u hadlayaan oo maartay kicinayaan arrintaas runtii loo galeeyahay in lagu maranaadiyo runtii waxyaalo fara badan oo dadku ay qaban lahaayeen horumar ah anna waxaan rabaa dadka Jubbaland waxay tigsadaan in loo sheego runtii way ka mid tahay doorashada xilligii la qaban lahaa inaan lagu darsan kareynin inay u daargaroobaan dadka hadda xilalka haya maartay baarlamaanka kamid si sharci ku jooga xilligooda inay dhameystaan waxaa kaloo jirta maartay caburin baa jirta siyaasadeed takrifal awoodeed baa jirta runtii dowlad goboleedka Jubbaland waa cabursan yihiin dadka halkan jooga waxyaalahaas oo dhan runtii waxyaalo maartay aan rabno inaan banaanka soo dhigno oo ay ogaadaan meeshan dadku wixii ka jira kaasi waxa uu ahaa afhayeenkii hore ee maamulka Jubbaland Cabdinaasir Seyraar Maax oo la soo xiriiray laanta afka Soomaaliga